waxaa la igu furay inaan ahay nin sirdoona jaajuusa dowladda Soomaaliya u shaqeeya al-shabaabna aan ka rikoor gareeyo wax ka badan 100 cod cododkii aan booliiska la wadaago codkii maalintii xeeralay sharci hortaagay waa la sidaa maalintaas maalin aad u adag sel weli kara marka iyaga gudbiyay no waxaan de waa tiimamkii corruptka ninkan la shaqeynaya wixii soo siiyay soo qaatay marka codadkaaga la tagtay maxkamaddii militariga waa la sidaa kuwii aan CID-da ku wareejiyay waa la sidaa waay ninka wala soo xiray waxa la isweydiin karaa marka Faaraxo ninka intaasoo kiis aad la maraysay dhankii dowladda markaan hadda maxkamadda militariga loo guuro maxkamadda rayidka ahayd uu kaaga adkaaday yes faylasha saaxire yes yani galkayga ma xira caawu furan yahay galkayga waa sidii isku yahay laakiin galkii inuu dhaqaaqo ila mogtay waa la soo baarin jirtay baarisada timid booliiskii xogtii injineerada xogtii ninkan shakhsiga wixii dhan soo cadeeyeen lacagtii way soo cadaatay inuu maxkamad aado oo iga adkaado yes caawa ilaa maalintaas kiiskii maxkamad galkii maxkamad maaday waayo markaas stage-ka furana wuxuu yahay in maxkamadda la mudeeyo oo la codsado in galka kiiskan qaado kadibna ay go'aan ka soo saarto maxaa awood inta la egsiye kula tahay awood inta la egday corruption asi wax kale ma sii waay kulli lacaga ma mush yaxyani wuu baqay qofkan dacwo ogista joogo aniga warqadaha oo marin habaabinta isoo qoraanay de waa cadaaladiisu waa mid business ah wuu gatay waay marka tan militariga marka hawsha waa dhaqaajisay ninka 4 saac gudaha lagu soo qabtay sayridu soo qabatay waa dhaqaajisay waa la soo qabtay waa la eedeeyay CID-du markay arkeen kiiskiisa waxay dhaheen waqti u baahan 15 bari haysteen xalaalina waxa la dhahaa xalaalina la soo siiyay 15 bari haysteen ninkaas barasharka la saarayay meeshii lagu qabtaba saraakiisha ciidan ee soo kacay looyarada dadka ganacsatada ah orda يعني nin la rabo in dhibic biya laga ilaaliyo yani dalad lagu wardiyaa xitaa dadka qabiilka socda waxa xasuustaa maalintii kiiska nagu bilowday ilaa maalinta u dhamaaday laba nin oo odayaal mid laba bakorood u baahan yahay xitaa hal kuma socon karo iyo qof weyn la socdo xafiisyada tagan uu yahay ilinta iyo xaaska wax la jilaya oo ilaahay ninkan waa bari u ka waxa xeer ma xitaa kama difaacayaan kiisaska qaar laakiin waxay leeyihiin annaka naqaana tuug maahan gangister maaha waa qofkii la garsooray oo ay hor tagaan wuu emotional noqaba meelka maxaa ka caawinaysaa taas dadkan qofka sharciga lagu haystaa waxay ka caawinaysaa haddaad aragtid laba qof oo isdacweynaysa qof dhageysanaya garsoore ama xeeraaliye dhageysanaya qof saddexaad oo eedaas banaanka ka ah yani waa fursad xaq darro ah oo la baxsho waxaa la rabaa aniga haddaan ku eedeeyo inaad iskaga difaacid qof saddexaad hadduu yimaado qofkaasu rool sharci shaqo kuma leh marka qof hadda aragtid marka qof saddexaad dhegeysanaya duruufna waa loo dhegeystaa dabcan waa haddii meesha dee duruuf weyn oo laakiinse sharci lagu dhegeysto warkoodana lagu siiyo mudnaan lagu siiyo ma jirto weligii qof ma wadan sababtune haddaan xitaa hal loori oo dada geeyo qofna igama qabiil badnee waa inuusan warkooda nuxur sharciya la doonin ninkii marka odaga ahaa markii la xirayba 4 saac gudaha la soo qabtay magaalada oo dhan yaacayso magaalada yaacay ganacsatada yaacay waxa yaaca odayaal wax zaman loo guuldareystay xitaa waxyaabaha marka calaamadaha noocaas oo kale xataa waxay ku tusayaan inay wax jiraan yani waxbaa la aasaa moogtahay haddii salka lagu tago ninkii CID-da qaybtii argixisada dirka ahayd meelay u socdaan marka daadaa la moosaa xitaa waxaa ku jirtay cornel